dagaaladaatan muddo soo jireen oo ilaa bishii lasoo dhaafay howlgallo ciidamada Puntland ay ka wadeen bariga fog ee Puntland bay ahayd shalay dagaalkii dhacay deegaanka Dhamanacdo ka gacamaareed aagaas buu ka dhacay ciidamada meelo badan oo cadawga ku dhimaalaysanay bay ka burburiyeen sahaydii iyo wixii yaalan ay ka qabteen ilaa iyo 4 goobood 5 goobood ay kala wareegeen marka maxaa khasaara oo labadaba dhinacba soo gaaray oo aad ogtihiin dhankooda maxaabiista waa laga hayaa dhimasho badanna waa leeyihiin wayna kala farxadeen oo hadda meel ilaa howlcaanood bay fircadkooda marayaa ciidankuna waa ku raad joogaa dhanka ciidanka Puntland laba askari baa dhaawac fudud soo gaaray waxaad sheegtay inaad khasaaro gaarsiiseen saldhigyana aad ka qabsateen dabcan waxaan ognahay in nimankaasi muddo dheer ay halkaa joogeen dhufaysi u qodnaayeen idinkuna aad weerar ahaydeen marka sidee ku fududaan kartaa oo aad u leedahay annaga dhaawac basaana soo gaaray dhufaysyo badan nimankaas ma qodnayn nimanka meesha waa ku dhumaalaysanayeen awood badanna male awoodooda waxay ku koobnayd miilooyin ay dhigeen oo tiro badan oo ilaa 20 gaaray qaybna ciidamadu qarxiyeen qaybna ay qarxiyeen baabuurtii iyo saayid ay wateen ku qarxiyeen faan ku soo gaarin awoodooda sidaas ay ahayd ciidanku aad iyo aad buu awood badan yahay Puntlandna waxa weeye sida argagixisadu meelaha buurahan oo xoogaa xaqrada adag tahay mooyee awood badan oo ay ku leedahay ma jiro sahayda ay baabuurta ku qarsadeen xagee bay geeyeen aad sheegaysid sahayda ayaga amba laga qabtay ciidanka ka qabtay magaratay dibadda ku aasaan qaar ay ku geystaan intii baabuurku ka yahay bay baabuurta waxa ay ku gudeen baabuurku ugu dambeeyay ku qaadanay uu gubeen waxaad sheegtay inay jiraan maxaabiis maxaa tiraan ugu sheegi kartaa tirada maxaabiista iyo dhimashadooda iyo khasaarada gaartay ee rasmiga iyo meelaha laga qabtay waxaan soo gudbin doonaa hadii ilaahay meelo wadaagi doonaa marka hawlgalkan soo afjarmo hawlgalka goorma soo afjarmaya marka hawlgalkan wuxuu soo afjarmaya marka qofka ugu dambeeyay ee nimanka ka tirsan gacanta lagu dhigo hadii ilaahay taliya suurtagalnimada nin hubaysan inaad tiraahdid qofka ugu dambeeyo markii la soo qabto sababtaasi ma noqonayso mid aan dhamaad lahayn ma noqonayso oo argagixisada sida la socotid waa waxaan wax caalamiya waa fikir arinta ciidanku uu maanta ku hawlan yahay waxay tahay inuu dhammaan ka sifeeyo meelaha ay ku dhumaalaysanayaan iyo buuraha ay ku dhumaalaysanayaan waana suurtagal ciidanku inuu ku guuleysto waa dareemi karaysaa masaafada intaa la eg oo hadda laga sifeeyo ay ku dhumaalaysanayeen oo miinooyinka dhigayeen oo ay dadka ku dhibaateynayeen muddo kooban taas waa u suurtagelinaysa ciidanku inuu maaragtay uu meelahaas ka sifeeyo dadka shacabka iyo deegaanka iyo meelaha ay ku nool yihiin aad buu ciidanku la shaqeynayaan aad bayna raalli weyihiin maaragtay in lasoo afjaro ayagaana waxa weeye hormuud ka noqonaya hadii lahayd igu guuleysto waxaad tiri waxa lala dagaalamayo waa fikir marka fikir qori caaradii miyaa lagula dagaalami karaya way noqonaysaa qori caaradii in lagula dagaalamo sababta keenaysa waxa weeye ayagii baa qori wata qorina qori baa waxa weeye lagu soo afjari karaa marka qori baad qori ku afjaraysaan laakiin qori fikrad kuma afjaraysaan fikraddu waxay imaanaysaa markii qoriga la sifeeyo in dadka laga wacyigeliyo laakiin inta qori ay haystaan waxay noqonaysaa in qoriga lagu soo afjaro taliya dhulkan buuraleyda ah dhowr jeer hore ayaad howlgalle ka fuliseen oo aad lahaydeen waana ka adkaanay iyo dhul baan ka qabsanay iyo waan soo qaqabanay haddana waa aragnaa howlgalkii baa soconaya aad leedahay marka sooma muuqato arrintan arrin aan dhammaad lahayn inay tahay oon afka aad ka sheegaysaan inaad soo dhammayn doontaan sida aad la socotid dabeecadda dhulka iyo meeshan buuraha ay tahay waa meel aad iyo aad caqabadeeda u adag tahay buuraha Afghanistan hadda Mareykanka kula dagaalamayay la mid tahay sidaas oo ay tahay qalab casri ah anagoon haysan oo ciidamadu sida caadiga u qalabaysan yihiin bay waxa weeye meesha inta laga ka sifeeyeen marka waxa weeye taas waxay ku tusaade sida loo aaminsan yahay ciidanka iyo kartidooda iyo wadanimada ku jida iyo sida uga go'an tahay inay soo afjaraan oo naftooda u hurayaan